Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqday safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo uu kula hadlay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu kula dardaarmay in ay ixtiraam kula noolaadaan dadka reer Kenya ee soo dhaweeyay isla markaana ay ixtiraamkaas uga shaqeystaan. kaliya waxaan rabaa inaan xasuusino oo aan kula dardaaranno waxaan joognaa wadanka dariskeena ahaa ee Kenya oo si wanaagsan idin soo dhaweeyay oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee geeska Afrika. ixtiraam ayaa leedinku leeyahay dalkan u ilaaliya sida dalkiinoo kale uga shaqeysa sida dalkiinoo kale laakiin waxaan jeclahay inay ii soo duceysaan oo dalka aan doorasho xor iyo xalaal geliyo. taas ayaa dhammaanteen muhiim noo ah inaan wada aragno dalkeenno xasiloon. saa u jeedaan safaaraddan aniga horaan u imid iyadoo burbursan oo jajaban 3 sano ka hor saan qiyaasa ayaan imid. ma malaysan karti foolxumada iyo arag xumada ay lahayd waagaas laakiin maanta alxamdulillaah dad mas'uuliyiin ah oo wax weyn ka qabtay dhulkan weyn ee dawladda Soomaaliyeed asaliyan ee iyada leedahay sida uu sheegayna la dhacay kadibna dib loo soo celiyay maanta gacanteena ayay ku jirtaa. alxamdulillaah ilaahay inuu na tuso nimcadeena haddaan annaga dadaalin oo annaga aan walaalo aan wada noqono garbaha in saarno waxaana lama dhacayo. marka aan u soo jeedsano waxa aan leenahay si aan loo dhicin haddii kale balaayaa dhacayso hadhowna gadaalaan ka qaylinayna waad ogtiin waxa ilaa hadda dhibkana haysto marka dib uguma noqonayay insha Allah. safaaraddan mas'uul ayay idinka tahay dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Kenya waa inaad ku tashataan waa inaad garab istaagtaan iyadana iyo annaga dawladda Soomaaliya ahaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan ilaalino xuquuqdiina amnigiina iyo dhaqaalihiina mas'uuliyadda naga saaran oo ugu horeyso safaaradda hadday ka culusaatana ee annaga noo soo gudbinayso san wax uga qabanno. saa darteed wada shaqeyn waa muhiim kalsooni waa muhiim ilaashada safaaraddiina iyo dalkiina waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.